بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحوا عبد الرحمن محمد فارح وحان كميد هاي ardayda ka qayb qaadanaysay barnaamijka bile oo ay soo qaban qaabiyeen shirkadaha kale ah Tabarak ICT Solutions iyo Somali Rain oo ah isku xiraa halka Hormuud Salaam Foundation ahayn taabikaliyaasha barnaamijkan barnaamijkan waxa barnaamij aad muhiim u ah kaasoo la qabanay sanadkii labaad oo ay qabanayso Tabarak ICT Solutions barnaamijkan wuxuu aad iyo aad muhiim u ah ardayda soo aad iyo aad ugu faa'iido meeshaas experiment weyn ay noqotay secondary fursada kale oo ka helnay waxa waaye in yani arday badan oo jaamacado kala duwan ina ka soo qayb galay oo yani aan isfahanna meeshaas oo team working oo ka dhacay isbuucu socday waxaan ka faa'iidnay shakhsiyan marka aanu iska hadlo maadooyin aan soo qaatay inaan dib ugu laabtay oo aan refreshment qaatay tusaale ahaan maadooyinka annaga aan project ku dhisayna waxay ahaayeen ASP.NET waxaan soo qaatay anigoo semester 5 ah then hadda refreshment ay noqotay maadada inaan xasuusto oo aan hadda wax ku dhisi karo marka waxyaalo badan iyo projects badan oo la sameeyay sida annaga hadda projectskan sameeyno kale task management system barnaamijkan waxaan ku baranay in la baro laba qayb oo ah hard skills iyo soft skills hard skills oo in projectidii live project la sameeyo iyo soft skills in dhanka connection in team work ahaan loo shaqeyn karo in projecti ama presentation nogla baray ama kaasi oo dhanka soft skills ka nagdhisayeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb qaatay sidoo kale waxaan halkan ku bartay team cusub oo isku group nahay oo jaamacado kala duwan kala socdaan tusaalahan aniga waxaan ahay afar qof aan ka koobnayno afar jaamacado kala duwan aniga Dar es Salaam ka socday ardayda kala jaamacadda Jamhuuriya Muqdisho UNESCO kala socdeen sidaas kale waxaa halkaas ka abuurmay network inaan sameeyno oo arday cusub ah isbaranay wada shaqeyn dhaxmartay taasna waxaa noo suurtageltay ilaahay ka soo koow jaamacadeeda Janis ECC inaan ka soo qayb galo iyo Tabarak ICT oo Janis ECC iyo Somali Rain inaan barnaamijkan qayb ka noqdo iyo Hormuud Salaam Foundation oo ayadan taabagelisay barnaamijkan aad iyo aad ay u mahadsantihiin dhamaantiin